wararka ka imaanaya degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ku soo waramaya in deegaanada hoos yimaada degmada Afmadow ay ka jiraan abaaro baahsan iyo waliba biyo yari. dadka reer Afmadow iyo waliba deegaanada ku xeeran ee hoos yimaada degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ku soo waramaya in xoolihii ay ka dhamaadeen isla markaana abaar baahsan ay ku dhufatay deegaanadaasi. sidoo kale waxaa lagu soo waramaya in halkaasi ay ka jirto biyo la'aan baahsan taas oo saameysay dadka iyo dunyada. gudoomiyaha degmada Dobley Siyaad Maxamed Xasan ayaa waxa uu qeyladaan u jeediyay hay'adaha deegaanada Dobley in markaasi ay ka qayb qaataan sabata bixinta dadkan masaakiinta ah ee ku baaba'aya deegaanada hoos yimaada degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. sidoo kale waxaa jira abaar ka dambeysay oo la socotaan muddo hadda 12 bilood roob fiican lama helin. dadku waxay ahaayeen dad ku nool noloshoodu xoolaha iyo beeruhu labadiba meeshay ka baxeen. beerina warkeeda ma jirto ilaa iyo bu'aale iyo saako iyo salagle iyo jilib webiga jiinkiisa dadkii joogay waa ay soo tageen dhal Jubba way soo kaceen waxay yimaadeen magaalada Dobley waxaa jooga IDPs aad fara badan oo dhinacyo kala duwan ka yimid. waxaan isleeyahay kii isaga ahaa waxaa ka sii daraba dadka deegaanka joogay ee xoolo dhaqatada ahaa iyo dadkii tuulooyinka joogay iyo dadkii magaalada joogay oo waxay ku noolaayeen xoolo ahaa xoolihina hadda saacadda aan taagana sidii dadkii ay ku xariisan yihiin xaafaduhu magaalada Dobley markaad hadda aad uga baxday dhinac walbo waxaad tagaysaa dadka xoolo dhaqatada oo xoolihii meel ku ooday oo doonaya inay gacanta wax ku siiyaan hadii nin 100 saacad lahaa oo 100kiiba saacadan aan taagana duur aan u foofin isla mar ahaantaasna wax kale oo hadda uu gacan ku hayana ayan jirin. waa dareemaysaa xanuunka ee jiro dadka iyo dunyadiiba waa la isku baaba'aya ilaa hadda saacadda aan taaganahay. waxaan isleeyahay haddii raxmad ilaahay keenin halkan waxaa ka dilaacaya dhibaato aad u fara badan oo ku yimaado dadka deegaanka meel ay joogaanba ha ahaadaane. marka waxaan qaylidhaan u diraynaa dowladda Jubbaland oo isleeyahay dadkaasi aad u baaba'san yahay abaar foolxuna way jirtaa. hadda hay'adaha samafalka laba hay'adood ayaa isxilqaamay. hay'adda Care oo Westa Partnership la biyo dhaaminayaan hadda saacadda aan taaganahay. hay'adda Westa biyaha dhaaminaysa oo goobo kala duwan bay gaarsiisay ilaa iyo 12 goobood macal Afmadow ilaa Dobley. waxaan isleeyahay biyo hadda ma ku filan yihiin kuma filno biyo. runtii waxaan isleeyahay biyo ayaa loo baahan yahay. waxaa ka daran wixii la dhigi jiray raashin dadku xoolihii mar hadday ka fariisteen iibna ay xoolihii lahayn xoolihina ka baaba'ayaan. ascaartina loorkii sokorta oo magaalada Dobley ka marayo $40 bariiskuna sidaa uu yahay saliidu ay marayso $35 dadkii waa isu ekaadeen. marka dhibaatada intaa la eg yaa waxaan doonaynaa in wax laga qabto oo qaylidaan ka nahay dhammaan hay'adaha samafalka hadii kuwa UN-ka kuwa internationalka iyo kuwa localkuba. waxaan ugu baaqaynaa in dadkaasi gurmad degdeg ah loo sameeyo. runtii waxaan isleeyahay dadku waa la dadku shacabka ee hay'adaha samafalka iyo maamulada ama dawladda waxaa weeye dadku way isku xiran yihiin noloshooda way isku xiran tahay. mar haddii tiimiga ay baaba'do magaalooyinkana way raacaysaa. marka arrinkaas iyada ayaa saakay qaylidhaanta ka jeedinaynaa. waxaan isleeyahay markii aad aragtaan baaqan aan hadda halka ka dirnay magaalada Dobley oo arka inay xaalad khatar jirto waa in si degdeg loogu gurmadaa oo wax looga qabto. Cabdisalaam Wardheere, VOS TV, Muqdisho.